waxaanu ka jawaabayaa nin la yidhaahdo farmaajo jamhuuriyadda somaliland waa muqadis maasha allah waa free ciddii faragelisana waxa weeye dhib bay ku noqonaysaa jamhuuriyadda somaliland waa mid ilaahay taageeray oo hagaajiyey oo uu saxay ninka farmaajo la yidhaah waxaan leeyahay ilaahay baa saxay Soomaaliya waa runtii haddii aad aflagaadada iyo dhacdhaca aad naga day weydid sidii adeerka afweyne ayaanu laa kula dhici halo ma ilaa dadkii urday aakhira jooga soo ma sidee waxa kaloo kaas aakhiro soo naga daxilban adigu falbaad ku timid falla baadina doorasho ma waxaad ku timid falbaad ku timid hayo falkaasina dadka fashay doorasho kuma admin waxaanu ku leenahay haddii aad aflagaadada iyo dhacdhaca haddii aad naga day weydid sidii adeerka afweyne ayaanu adeer maraqaad cabi doonaa haddii ay bilaado ta kale aan maanta halka ka sheegaya waxa weeye etoobiya waa dal wanaagsan oo fiican oo wanaagsan dalkaasi madaxdoodu way wanaagsan tahay shacabkooduna waa wanaagsan yahay Allah ya isa Allah ya isa warunti afkaad ku haysaa farmaajo oo markaasi mar walba waxaad leedahay afkaad ku haysaa haddii aad afka ka day weydidna dalkaasi waa dal wanaagsan oo aanu jaar nahay oo aanu saaxiiba nahay oo aanu wanaagsan nahay marka waxa weeye farmaajo nabadgel aflagaadada dalka etoobiyana waxa kaloo aan maanta halkan aan ku saxban la xaaj uga fadhiyaa way inta fariiba dufalle farmaajo dibta waxaynu nahay dal saddex waddan baynu nahay jabuuti af soomaal bay ku hadashaa somaliland af soomaal bay ku hadashaa xamarna af soomaal bay ku hadashaa waa runtii waxa weeye carabo oo dhanna lama Soomaali bana aanu khalaqoon waana wada dowlad adeer waxaan ku leeyahay aflagaadada naga daa haddii aad aflagaadada day weydina بدل هولي annaka هذا kaa shaqayn doona ها إنها كش قيدون هذا ما كش قيد heshiiska labada golaasiyiin cid ka noqon kartaa ma jirto ده هو نقول لك labada golaasiyiin عيد نقول تمشي فيها لو رد حلو نقدر إلى يكون نقول راي ha ha dalkan dad baa u xaq u lahaa inay madaxweynaha kusoo baxaan أي sidaa daraaddeed wuu falay falba kusoo baxay dadkii حلو ما كايجي ما كنت هاجر سنة كمان رجعت والله weriyaasha weriyaa la xiray وريادي waxaan ka codsanayaa dadka xidhay inay soo daayaan aad iyo aad ayaan uga codsanayaa صدقني بقول حالك من غفرة hala soo بقول يا طبعا قرب بعد الشيء سومالي شعبك في سومالان وشعبك مقدسيس وقول عقلك بدل الصوت كاسر الضرورين حلو ديبن عدوان نتشال بين قردنا بحال نقا عقل بدن داعدنا markaan waxaan leeyahay waa doqonkii ugu horeeyay oo banaanka doqonimadiisa soo dhigta waxaan u baahanay doqomiin badan oo hogaamiyayaal ah oo aan dooranay deena iyaguna banaanka doqonimadooda soo dhigtaan ilaan waata doqomiintii marka soo jabay fariidadiina waa kan godka lagu ridayo marka alxamdulillah doqomiintu aad bay noogu soo socdaan ma garanaysaa iska rogooyin baa lagu keenay maasha allah kuwii ma garanaysaa dadka u garqaadayay ee fariidada ahaa ee dadka caqliga badnaa ama dadka caawinaya masaakiinta markaa dadkii dalka ka shaqeynayay ee wanaagga dadka usoo jiidayay ee ma garanaysaa xumaanta ka reebayay ee dadka xaggii fiican u hagayay dee dhammaantood adeer
gaar ximaar baan saarno waddanka waan ka saarnaa kaasoo midhana waanu dooranaynaa maasha allah somaliland waan ku sacbayn lahaa fariiban baasti suugala ku cunay sidiina kale sulka dheeraabay daba socda weli